deegaanada ruuq ee degmada Baki ayaa roobab ka da'ay shalay waxyeelo ka soo gaadhay beeralayda deegaankaasi waxaana dhibaatadu ka soo gaadhay biriishkii ugu weynaa oo ku yaalay gobley oo daad qaaday biriishkaasi oo cabirkiisu dhan yahay 40 mitir oo dherer ah iyo 10 sare waxaana uu biriishkaasi biyo siin jiray 70 beerood oo ku yaala deegaankaas halka beeruhu aanay haysan ceelal iyo mishiino ay biyo ka soo saartaan أو دباتوي بدلنا وجيستي أو بريه هذا كيسان بريش كان كعبيني كابديه سي عن كابدي دين عن هي كابدي كله بريه هو لوجيه وكتشوي انتبهوا قاري biyaha ay toos uga heli jireen biriishkaas waxa kaloo biyahan isticmaali jiray xoolaha iyo dadka dhibaatada iyo khasaaraha soo gaaray biriishka waxa ka waramaya gudoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye isagoo ka waramaya arrimahaasna waxa uu baaq u diray xukuumadda iyo cid kasta oo wax ka qaban karta hagaajinta biriishka beeroodina maanta beerihiin sharci loo baahnaan ku yaallo saacadda laga bilaabana waxa soo kaca marka dadku tacabkiisi iyo wixii ay hanti galiyeen baalka ku qasaarana waxa la filaa in dadkii qaxooti noqdo Soomaa oo meel kale u qaxo ama bada kala galo oo dhuxul iyo magaalooyin kale u qaxo waxaan xalayba ka codsanaa imikana ka codsanaa dawladda gobolka maamulka gobolka wasaaradda beeraha iyo dawladda dhaxaba iyo hay'adaha wax caawiyaba in gurmad degdeg loo sameeyo dadkaas aan ka codsanayna waxa iyaguna halkaasi ka hadlay dadkii ka manaafacaadsan jiray biyaha uu keeno biriishkaasi biyahaasi sida haddii ay u geysan lahayn oo beeruhu geysan lahayn waa mas'ala meeshka dhacda ka xoog badan amran caafi